السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga qaaliga ah ee aad iyo aad aan u jeclahay, ilaahay hayda barakeeyo meel kasta aad joogtiin. walaalahayga qaaliga ah asxaabteeda ee ku taxan channelkeyga maama sharaf. maanta waxaan idin hayaa walaalahayga qaaliga ah gabar odageedii la guursaday saaxiibteed aan idin hayaa walaalahayga qaaliga ah. aad iyo aad meesha maseerka kaga dhacay. waxaan ka sheekeynaynaa maanta maseerka dhibaatada uu leeyahay aan ka sheekeynaynaa walaalahayga qaaliga ah. haddaan qisadii aan hore usii galo waxaa waaye gabadhan waxaa la aroosay saaxiibteeda u imaaday inay 7 ka bixiso. maalintii 7 laga bixinayo 7 bixiskii buuba ku caashiqay ninkii. gabadhaana waa gabadha saaxiibteeda maalinta arooska ay la qabo qaadinayso, arooskeeda hagaajinayso. maasha allah hooshii meesha ku haysayo maasha allah tabaarakallah. ilaahay wuxuu qadaray in 7dii intii ay ka bixinaysay inuu ka helo asagii. ilaa ragga aad u damac badan yihiin. saaxiib waa ma lahan, walaasheed waa ma lahan. maasha allah raggeena soomaaliyeed aad bay u damac badan yihiin, laakiin waxyaalaha qaar waa laga fiicanya mahano. 7dii intay ka bixinaysay walaalahayga qaaliga asxaabteeda qaaliga ah ayay meeshaas ka dhamaysatay hoosheedii ka dhamaysatay, sheekadeedii wadatay, barnaamijkeedii hore u gashay. jaceyl dhiindhiin meeshaas waxaa kasoo baxay jaceyl dhiindhiin la yiraahdo. gabadhan waxay ka tiri aniga warba maba ka haayo saaxiibtay oo 7 iga bixinayso oo aad iyo aad nafta nooga dhexaysay baaba ninkaaga damceyso maba isdhahayay tiri, mana kama seeraayo. waxaa dhacday 7dii markay ka baxday oo 7dii maalin 7dii lasoo gabagabeeyey ee 7dii dhamaatay, gabadh way soo baxday, reerkeedii aaday, ayadina labadan qofna way isku soo hareen. waxay tiri sidaan u wada joognay ninkii waxaan arkaya tiri markasta telefoon lee ku hadlaayo, mashquul, xaggayga dhan biisi ka noqdino. war maxaa dhacay, maxaa iskaa bedelay? shalay markaan lamaanaha jilayni oo jaceylka aan jilayni waa aad fiicneeday, markaan hooygaagii soo galay maxaa isbedelkan keenay? maxay tahay afardheetema aniga ayaga mashquulsan tahay, aan aroos cusub aan nahay, maxaa kooskariyay? sababta maxay tahay? asxaabteeda waxaa dhacday gabadhii ninkii wuxuu yidhi maya waxba maaha, adaa umaleysid saan waaye. ragga waa iska xaalkooda ilaaha og. haddii mar ay meel ay barnaamijkaas ay ku jiraan si lagu ogaado waa adagtahay soomaa sirtooda. laakiin hore waxaa loo yidhi qufac iyo jaceyl midood ma qarsoomo. qofka hadduu hargab haayo qufacaayo, hadduu si doonto isugu celcelsho ma isku celi karo qufac. jaceylkana waa sidaas oo kale taa la yidhi. jaceylkii saaxiibteed isaga daba dhacay maalin maalmaha kamid ah waxay taleefonkii soo dirtay ayada moobeelka odageedii ee soo wacday ayadooba sirtaan meel ay ka raadisa la-san iyo meel laga jiro odagan laga haysto magnadkan haysta muxuu yahay ka fakarayso ku yaabtay meelay aadamala waxna caddeena ma hayso. ninkiina inay wax si ka yihiin way aragtay. asxaabteeda qaaliga waxaa dhacday maalin maalmaha kamid inay taleefonkii soo wacday waqti uu asaga balamiyo yiri xilligaas isoo wac. ay ku balameen labadooda. dee xilligii markii la gaaray taleefonkii soo dhacay. markuu soo dhacay taleefonkii jafay siisay way ka qabatay nambarka saaxiibteeda taqaan iyadoo ay tahay oo og tahay ay ka qabatay. markay ka qabatay oo waxay tiri aan ka qabtay taleefonkii aniga ma hadlina tiri waa dhageystashay baan dhihi tiri hello baby xaafad baan joogtaa. ayadii waxay tiri waa dhalaala haddaan dhahay baraf camalan u dhalaalay tiri. taleefonkiina waa iska damiyey tiri dhag. asagiyaa soo baxay suuliguu ku jiray tiri. markuu soo baxay waxaan dhihi tiri haye cudurkii ku haayay in badan aan ka fakaraya ama dhahay odagaaga xaggoo kaa jira aan ku in badan maskaxdeyda aan iskala hadlay. maanta aan helay gabadhi saaxiibtay ahayd
ayaa kusoo wacday intaa musqush ku jirta ayadoo baby halow baby